waxaa booqasho laba maalmood ah joogta ismaamulka Wajeer Marwo Aamina Maxamed Mursal. Waa tuma Aamina Maxamed Mursal. Aamina waa wasiiradii hore ee Soomaaliya, muddo dheerna ahayd xildhibaan dowladda Soomaaliya. Haatan Marwo Aamino waa la taliyaha madaxweynaha arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Marwo Aamina Maxamed Mursal ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay ismaamulka Wajeer, halkaasoo shir ay kula qaadatay waxgaradka, salaadiinta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee kasoo kala jeeda ismaamulka Wajeer. Soo dhawaaw ciidan waa ree aabbaha magac fiican aad noo keentay maalin dhow meeshaan raadiyalka qof kale adi oo kaloota ah oo zaid kaaga darajayar magaaladan imaaday dad badan oo soo baxeen xalay waxaan yara masayr magi cid raabow kaliya ay raadiyaha ka haaday magi laakiin cudurku anaga baxay magi maanta nool yeeray markaan tol jira ilmaadeer jirta gabartayni soo dhawaaw jeelada qalan ergaada qalan markii walaalay waxaan ku leenahay soo dhawaaw gacmo furan ku soo dhawaaw dhulkan waa dhulkaadi hooyo waye oo insha Allah taala isku halay marin insha Allah waa lagu saaraa soo dhawaaw waxaas doonaysan Ilaahay ku sahlan ku leenahay ari nafsadayda maanta waxaan qaybsanaynin oday Wajeer ku dhasho intaan ku soo dhamaadaanahay waxa sharaf noo ah in gabar maanta beesha dagoodiyo oo wasiirad ka noqotay xamar ay hor fadhido oo intii ku jeedana waaba ku jeedaa inta kale dhigta ay ku wada dhacdo wax weyn badan nalta dhulku waxaan ogaanaynaa inaan xamar wax ku leenahay marka aad soo dhawaaw Aamina soo dhawaaw Marwo Aamino ayaa madasha shirka ka mahadcelisay sidii wacneed ee loogu soo dhaweeyay ismaamulka Wajeer. runtii wixii hadal ahaa odayaashii hore ayaa hadlay aniga kali waxaan rabaa waxaan halkan u yimid inaan tolkayga soo barto inaan ka mahadceliyo sida sharafta leh oo Soomaalinimadana oo Muslimadana ay soo dhaweyseen runtii aad iyo aad u faraxsanahay Wajeer waa imid hadda ka hor laakiin saalo kala ma ahayn mar hore 20 sano lagu jooga waa magaaladeedii waay waa magaalo dadkeeda xadaarad leh waa magaalo dadkeeda aad iyo aad soo dhaweynta ku fiican waay marka runtii ilaahay shalay ilaahay xalay ilaahay darad waa taagnayn marka walaalayaal mataqaana ay sheegay aad u faraxsanahay hadda walaashayn oo qiimo leh oo talkeedana si qiimo leh u soo dhaweey sheekadeedu maan hayna amaanteedu maan hayna waxaan ilaahay ka baryaynaa shaqada ay rabto Allah siiya ilaahayna u barkee. dhanka kalena Marwo Aamino ayaa boogaadin u jeedisay dadkii ka soo qayb galay madasha shirka iyadoo sheegtay in hablaha xilalka loo ogolaado kaalintoodana la siiyo gabdhaha mataqaana xilalku ogolaada gabdhaha soo dhaweeya gabdhaha kaalintooda wax ka siiya wax badan ay qaban kartaa haday guriga naqato haday siyaasadda naqato haday naqato in muxuu ahaa sheegay qaraabada la soo raadiyo marka waxaan rabaa gabdhaha inay siyaasadda ka qayb galaan hadii Ilaahay idmo because gabdhaha wax badan ay sameyn karaan hadda waxa lagu jira haday international naqato iyo haday gudaha naqato gabdhaha kaalin fiican ay qaadan karaan mataqaana arrimahaas